الله خالقي لا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أحبائي في الله، إلهي سبحانه وتعالى قبل هانتين بها إذن بركيه وحينو بلاوني برنامج كيوني قيمها بدنا عن كل تلي تلو مقادا تلواتي الله سبحانه وتعالى ولا ليال waxaa la yidhi talo laba tallaabo dhexdeed bay ka dhalataa markaasaad garan weydaa dhinaca aad u qaadid ma madax baad aadaa ma bidix baad aadaa way kugu cakirantaa. haddii marka aad dad maaragtay ehelkeeda aad la tashan weydo waxaa laga yaabaa tallaabooyin khaldan in aad qaado sida inta badanba dhacda. faamilye aad iyo aad iyo aad u tiro badan ayaad mararka qaarkood waxaad la yaabtaa waxyaabaha maaragtay dhacaya hadday noqoto mataqaana xagga especially family problemka. marka walaalayaal insha allah kusoo dirsada abudalxa1@gmail.com waa abudalxa waa APUDALX X-ray alpha number 1@gmail.com. maalin kasta oo sabtiya saacaddu markay tahay 1 PM Central amaba 8 PM UK 9 PM Yurubta kale 11 Maka al-Mukarrama ayuu alaaba programkani inoo baxa caalamka oo dhan waa lagala socdaa. weliba mataqaanaayay meelaha qaarkood wadankii idaacadaha localka ah ayaa toos ugu xiran. marka idaacadahana dhegeysto oo dhan gebi ahaantiinba hawada ayaanu idinka salaamaynaa insha allahu tacaala. sheekhayga ahlan wasahlan. maanta waxaan rajeynayaa su-aalaha si toosa ayaynu u geli doonaa haddii allah subxaanahu watacaala uu yidhaahdo. waxaa ila daadihinaya waa mataanahayga Salt Lake City Utah waa Axmed idaa waaqica. dhinaca kale waxaa jooga waa Mustafa Abu Dacwa oo isagoo kasoo gelaya Toronto Canada. waxaa inoo daadihinaya talooyinka qiimaha badan ayna siinaya sheekheena fadiilatu sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa oo isaguna jooga Denmark Scandinavianka ama Yurubta waqooyi. ilaahay subxaana watacaala mahadiis bay ahaatay annaga oo kala joognaa intaasoo qaaradood in haddana aanu hal program wada daadahaynayno. waa nimcooyinka ilaahay subxaana watacaala uu bixiyo ayay ka mid tahay. axmed idaa waaqica ayaynu ku bilaabaynaa iyo weliba Salt Lake City. axmed may maqlaysaa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي mahadsantahay أخي الكريم أبو قوزان sida sharafta iyo xilkasnimada leh aad noogu soo diyaarsay barnaamijkan qiimiga badan ee ah ila tali aan kula taliye talada maqaadan. waa barnaamij runtii aad iyo aad cajiib u ah. waxaa Denmark Scandinavianka ka soo jeedin doona fadiilatu sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahullah wa racaahu. salaan aad iyo aad u qiimo badan kadib sheekhuna alfaadil dadka sharafta badan ee ku dhegeysanaya ee aadka ku taageersan ee talooyinkaaga ku liibaanana way ku duceynayaan wayna ku salaamayaan. su-aasha ugu horreysa haddii aan gala gabar ayaa waxay leedahay 30 sano ayaan reer leeyahay ninka ay qabaahina weligay ima uusan dhihin waa ku jecelahay. marar badan ayaan isu dayey oo waqti badan ayaan geliyey inaan anigu jacayl ku abuuro. jawaabtiisuse waxa ay noqotaa reerkan dhaqo haddii aadan rabin in ay ilmahani aabala-aan noqdaan. aniguna waxaan rabay inaan isu muujino jacaylka maadaama ilaahay uu leeyahay waxaad isu tihiin dhar oo wax walba ayaa idinka dhexeeya. waase ku kari waayey ayay leedahay sheekhuna alfaadil. maxaad igula talinaysaa sidee ninkaa isaga ah jacayl ugu abuuraa? falyatafadal mashkuuran wa maajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد. aad baan ugu mahad celinayaa walaalaha qiimaha badan ee qaaliga ah runtii quluubtayadana ku weyn ee mar walba barnaamijkan waan kula taline tala maqaadan noo soo daadihiya oo noo soo aruuriya kuna howlan habeen iyo maalinba haddanana ugu soo gudbiya dadka qaab aad u qiimo badan oo aad u sarreeya oo maxaa la yidhaha qaab wariyanimo ah oo aad u sarraysa runtii oo dadka markii ay dhahaan waxaan aad u jecel lahay mararka qaarkood su-aalahaaga jawaabahooda waxaanu ka jecel lahay walaalaha soo gudbiya su-aalaha qaabka hufan ay noogu soo gudbiyaan su-aalaha. aad iyo aad baan anigana ugu faraxsanahay inaan asxaab la noqdo walaalahaas. jazaakum allahu khayran. 30 sano ayaanu isqabnaynin
weligayna ima dhihin waan ku jeclahay waxaan isku dayey bal inaan ku tallaalo waan ku jeclahay ama dhexdayada aan ku abuuro jawaabtuna waxay noqotay haddii aadan doonaynin carruurta aabbala'aan inay noqdaan sidaada ku soco horta adduunyada layskuma helo adduunyada koosaarteeda cid walba ma wada haysato adduunyada naqsi baa ku jira waxaa laga yaabaa inuu meelo kale ku fiican yahay waxaa laga yaabaa qole habeen iyo maalinba dhagahooda lagu shuba waan ku jeclahay inay dhinac kale ka ooman yihiin oo ay ka cabaadayaan oo ka calaacalayaan arrintaasi waxay salka ku haysaa xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi labada isqabta markuu la hadlayey lamaanaha midba midka kale yuusan ceebaynin yuusan ku nicin ama kaga tegin ceeb uu leeyahay waxaa laga yaabaa hadduu ceeb ku arko oo dhinac uu ceeb ka leeyahay ama uu ka liito inuu dhinac kale ku fiican yahay mar walbaba layskuma helo adduunyada sida la doonayo dhammaystirka waa jannada shaki waxaan ku jirin reerka waxyaabaha dhisa inay qayb weyn ay ka tahay bar udub dhaxaad ay ka tahay jacaylka raxmadda wata alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma jacayl iyo xubbi iyo raxmad ayaanu dhexdiinna yeellay buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala sakankuna kaas buu ku imaanayaa ilaah baa la jeclaadaa subxaanah ilaahay baa jacaylkiisa xuduud ma leh jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaynan uluuhiye ada gaadhsiinaynin jacaylka mu'miniinta jacaylku qaybo badan ayuu leeyahay tawqulxamaam kitaabka haddaad akrido in badan baad arkaysaa aqsaamta jacaylka alqaacidatu alcudmaa lishaykh islam ibnu taymiya haddaad akrido waad arkaysaa jacaylku qaybaha uu u qaybsamo hase yeeshe jacaylku waa midda nabiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam xagga qoyska ah waxaa la yidhi dadkii aad ugu jeceshahay nabigu markiiba wuxuu yidhi caaisha raggaan ka wadnaa baa la yidhi wuxuu yidhi aabbaheed ayaan ugu jeclahay waxaan doonayaa gabadha marka inaan dhaho hadduu ku dhaqanayo hadduu kuu fiican yahay oo hadduu ku wanaagsan yahay kelimadani meelo kale ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa siinayaaye kelimadaa sabar iyo iimaan allaha kaa siiyo ina qofu waxbuu waayaaye dad baa carruur waaye oo dad baa maal waaye oo dad baa xubnahooda waaye haddee waxaa weeye waxaan leenahay ilaahay sabar iyo silwaan ha kaa siiyo kelimadaa waxaa laga yaabaa ninkaagu inuu meelo badan ku wanaagsan yahaye intaa ku dadaal amaa seen ooga dhaadhiciyaa waa adiga iyo dadnimadaada waa adiga iyo xaragadaada waa adiga iyo quruxdaada waa adiga iyo qosolkaaga waa adiga iyo muusoodkaaga waa adiga iyo raalligelintiisa waa adiga iyo soo dhowayntiisa waa adiga iyo maxaa la yidhahdaa qaabka uu markaa ku soo dhowaanayo qalbigiisa saad ku haran lahayd biilaahi tabaaraka wa tacaala amaa haddii ay kelimadaasi ku cuslaato meelo kaluu ku wanaagsan yahaye oogu sabar oogu dulqaado wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل.